الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إله سبحانه وتعالى عبسيدي سأن كد ذالنا وفرها الدنيا إي آخرة ما أنت وحن قادنينا دعاء فائدة إلى هاي إيه حليدة للدعيستو دعاء هذا دعيستو فائدة نوعك سوق لايو saacaribiga maqleyseenba hooyo ayaa waxa u soo gashay wiilkeeda ayaa u soo galay raashin ay u diyaarisay guriga inuu cuno raashinkii ma uusan cunin way dareentay hooyooyinkana way dareemaan ilmahooda murugadooda hadii loo sheegin xitaa wajigaaga ka dareemaysaa hooyada markaasuu waxay ku tiri wiilkeeda maxaa kugu dhacay wuxuu yiri waxba iguma dhicin markaasuu waxay tiri ii sheeg hooyada ayaan ahay waxba hayga qarinine waxay tiri hooyo wuxuu yiri deen baa la igu leeyahay oo aan ku daalay bixinteeda waa bixin waayay waxay tiri meeqa lagu leeyahay wuxuu dhahay 2,000 oo riyaal aan igu leeyahay 7 sano ka hor ee dhacday qisadan 7 sano ka hor 2,000 oo riyaal waxay u dhigmaysay 200,000 oo riyaal qiimaheeda oo kale waa lacag aad tiro badan hooyadu waxay tiri raashinka iska cun hamurugoonin ilaaha keenaye eraygaas eray qaali ah waay hadii aad aaminsantahay wax walba ilaahay inuu keeni karo wax ka adkaanayo male raashinkii u dhigtay saliye fidsatay alle gacmaha kor u taagtay waxay tiri ilaahow wiilkeyga 2,000 oo riyaal lagu leeyahay gacmaha amaanta kugu baryaayna ma soo dejinayo ilaa wiilkeyga 2,000 aad ka siiso ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay dhibkaaga oo dhameystiran inaad u sheegato qofka bani aadamka markii bani aadamka wax uu sheeganayo dhibkiisu uu dhameystiraa dibadda markaa wacanaysid wax walba dhameystiray waliba beena ku daray xitaa xaalada hooya shuban ku soo booday ilmihiya inta iga ah hal bil ijaara lagu leeyahay 3 bil ka dhigay waxaas dhan waxa isleedahay xoogo ninkan hadibco intaasoo beena sheegtay $50 lagu soo dhiibaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibkaaga dhameystiran markaa u sheegato baahidaadii ka badan oo ku siinaa gacmaheeda kore u taagatay waxay tiri gacmaha ma soo dejinaa ilaa wiilkeyga wax ka siiso guriga waxa yimaadeen dad rag socda soo galeen ducada wala ajiibay isla markii dad la soo diray ducada hadii khaalis ay tahay wala ajiibaa laakiin ducada hadii gacmaha adoo kor ay ka taagan yihiin la ilaahu iska baxay wax laga ajiibay mal dibkan ma laga qaado lagu badinaa waliba maxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala si sax ma u barinin baadiga شاكا هيسا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وحرسكنا واسراعنا هذه دعو ماتاس عيار واحد إلهي عيار ما أقبل آيات إسلامتي سي خالصة إلهي كبر وحيتر إله قعمه مد جناي إلى ويلكي وحكسيس كالسوني قبطة إلهي رجع من جوريجا وسكر جراعين ويلك جوريجا وكفري ويسود بعدين ويسود جلين وحدهن وحان راذينونا geedaha canabka ayaga canab beer canab leeyihiin geedaha canabka oo geedihii laga soo jaray tiirka canabkan raadinayna ay dhahan markaas wuxuu yiri waa haynaa wiilka dhahay way heshiiyeen waxay dhaheen 2,000 oo riyaal aan ku siinayna geedaha nasiib asna meeqa lagu lahaa 2,000 oo riyaal 2,000 uu ka qaatay hooyadiisu soo cararay wuxuu yiri hooyo gacmaha daji lacagta ilaahay aawidsi waa timide ma laga daahin xitaa dadka aan sheegayna saxaabo ma aha taabiciin ma aha dadka anaga oo kale leeyahay sacuudiga ka dhacay qisadan laakiin maamada waxay tahay ilaahay ku xiran tahay toos xiriirkeeda iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nadiif waay lacagtii uu qaatay diintiisa ku gudtay asagana sanooyin diinta waa lagu lahaa iska bixin waay أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله وعليه خفك دبن دعاءك أقبلاي دا دبن تهي دبكاغا إسلام مركي دبك أكو دعو دبكنا هستا وعيه مشكلة ugu horeysa markii nagu dhacdo bani aadana soo xusuusana xoogo yar diin lagu lahaana gurigii ijaarkii bil aan ku dhaceyso isla markii waxa ku soo dhacayo adeerkaaga bakaara ganacsi ku haayo ay isleedahay $2 ku soo tuura maxay ku tartay dadka inay ku jeclaadaan hadaartid xoolahooda faraha u qaat ilaahay inuu ku jeclaado hadaartid ilaahay wax weydiiso maanta weydiinay bariya weydiinay saadam meel dheer oo ka arkaa waa ku goynaa gas
كي وأولئك باهي اسم ما تبع لكن إله سبحانه وتعالى باهي وجعلنا بقى انت الدعاء القرآن كسو أرورتي إلهي سوء أجيب فيره ما أنت بدر النبي صلى الله عليه وسلم دقال مفلين أفرتون كوقفات أو سفر وذين وربي إنه سفر كقاطع وندرا كون قفات لو صباح أجن سدح بقولي أهاين مال لقلابتنا ماله أنصار وفيري أنصار وحكوا بلنقادين نبي محمد وأنا وحنكو دفاعنا أنت أنا دحجوكتت mar haddii madiina banaanka uga baxdo muku difaaci karno balankaas uu ahaa nabi sallallahu alayhi wasallam ansaarna waa isku haleyn la yahay maxay la madiina waa laga soo baxay ansaar weydii wuxuu yahay maxaan sameeynaa ansaar waxay dhaheen rasuul allah anaga sidii muuse qoomkiisa ay dhaheen muku dhaheeno muuse qoomkiisa waxay dhaheen muuse adiga iyo rabbigaaga bax soo dagaalama inna ha huna qaaciduna anaga inta iska fadhiisanayna adiga rabbigaaga guusha noo keentina fiirinayna laakiin anaga waxa idin dhaheena ansaar adiga rabbigaaga soo dagaalama anagana waa idin la jirnaa rasuul allah ee dhaheen badan hadaa rabto xataa inaa kula galno oo aad gasho waa kula galeena ee dhaheen meel aan kaaga hareena male nabi sallallahu alayhi wasallam markaas uu farxay gacmuhu kor u taagay ilaahay wuxuu yiri iz tastaghithuna rabbakum soo xasuusta waqti ilaahay aad baryeyseen nabi sallallahu alayhi wasallam asagoo nabi ah oo wixii walba loo balan qaaday gaalada in laga dhicinayo loo balan qaado gacmaha kor u taagay heer ilaahay wuxuu bariyay nabi sallallahu alayhi wasallam go'iisa ka dhacay gacmaha kor u taagay Abu Bakr agtaagnaa go'o ka qaaday wuxuu rasuul allah bas dheh ducada waa laga aqbalay markii garabka uu saarina jibriil iyo ciidankiisa inta ka soo baxeen ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri istastaghithuna rabbakum ma'a ku xigto fastajaba lakum mala daahin fiiri faadan jimci horna waa idin sheegay fa ta'qib allah isku daah male ilaahay bariseen isla markii ilaahay waa idin ajiibi waliba ilaahay subhanahu wa ta'ala isla markii malaa'igu safay ciidan u diyaariyay hal guuta ciidan malaa'igu diyaariyay jibriil aan duuliye ka ahaa waxay dhaheen ilaahu dagaalan u diroosaye maxaa sameeyna noo sheeg waliga dagaal ma galin ilaahay wuxuu yiri fadribu fawqa al-a'naq qoorta ku dhufta gaalada inta meelaha laga dhinta loo sheegay inta ku dhufta wadribu minhum kull banan meelaha oo xidid walbana ku dhufta inta ka jaraal leh qofka di halboolaha la jaro dhiigbaxu u dhimana malaa'ikta la soo diray meel kale ku dhufanayeen gaalada inta ku dhufanayeen bas dhiigbaxu u dhimanayeen malaa'iktaas halkaas mar wax la soo sheegay bas maxay dhahay anaga ilaahay wax ma naqaano la ilma lana illa ma 'allamtana malaa'ik waqti xaadirkaas ducada intii socotay ala tawbarka waa loo soo xiray waa la soo diray malaa'ik madax cimaamado ugu doona la soo diray gaalada waa yaabeen shaydaan uu arkay wuxuu yiri inni ara ma la tarawun wargaalo waalantiin wada meeshan nabi maxamed dagaalamooyo malaa'iga dagaalamooyo yiri anigu wuxuu yiri waxaan u jeedaa waxa idinka u jeedin wuxuu yiri inni akhafu allah rabbul alamin alaga keen shaydaanka maalintaas aan ilaahan ka baqaa oo idinka tagi meesha malaa'iga joogtay wax laga qaban karo nabi maxamed laga ajiibi nuux ونوحا إذ نادى ربه من قبل نوح وقت إلهي أوبريي نوح مركي أو إلهي أوبريي ما حكو حكت فاستجبنا له أسجنه وينك أجيبنا دعاء شروطه لا لا شروطه إيمان دونان هذه شروطه لقاه له دعاء أما الدنيا لقاه أقبلها أما آخرها لو سينا إن شاء الله إلهي وحوري وين بدباديني أسجن أهل كيس بدباديني بيا يمد ولا بدباديي أيوب ما يقصن وحنوصنا إله بريء عليه السلام محوي إله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إله وحوري إسوء جاري جركيسا وحكذا شيء دود ترحية كذا شيء علمه سي تضوء المؤمن له هل معلم بالغ قاضي حاس كيسا دتك أشخين جرتي هير وحي جارتي ما هذا إنه جده جرجرته markii dibku ku darnaayo wuxuu yiri ilaahu diba isoo gaariyay in naxariiso ilaahay wuxuu yiri fastajabna lahu asagana isla markii waa ka ajiibnay urkud birijka hada mughtasalun baridun wa sharab bi meesha ku yaalo ku quweystay wixii dhan waa daateen meesha iska fariistay xaaskiisa timid ni islaameed meesha fadhiya umaleeniis wixii tiri ninkeyga ayuba waxay ka hor inta uga tagiye ma aragt quruxdiisa ka yaabta ani waayo dha ilaahay badbaadiyay ولي بنبي أيوب عليه السلام نبكى إسلام مركي وكل عاي إلهي مبرين وحور إلهي وأجينا نبنا هاي مبريا يهدو ده ذنبي أنجلي إن اللي يجونا لقي أبا وده سنوين كدو إلهي برين خرا لقى أجيبه
نبي زكريا عليه السلام وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نبي زكريا عليه السلام ويلو أهاد بعدم كوك دعي سنة حلقة المدن حاسكي سواء لافتي أنا وحاليا ومركي لبشي إلهي أن كبرنا إنه توسي وايو إن إسكا نيجب نبا أو مردم دعوة بقى إسكا ضعف نبا أو عندنا لو مرة إلهي وحميدي مع ملسكة توتوغا لأسجن وحسيت كايلا يا ملك واتوغا إلهي حكم كل هذا بريا هذا بس نبي زكريا عليه السلام ويلو أها حاسكي سنة وحجارتي حلقي مدشاهد عاقرة ولبا مخوصا وعور إلهه كل إن أنت مروا وحي نحلان رباه أو خير كان يو دين كان إقلا شقيه إلى معول فاستجبنا له دعاء أنك أجيبني ها محل سي ووهبنا له يحيى نواصيني حاسك سؤور خاد وهذا شيء ويرد شيء يحيى ليراده ولم أكن بدعائك رب شقيا ولا إله دعاء منك جابناي هداد هذين كوا أنبياء ودعاء ولا أقبلا قصك لا إذن شيء نمبا وحا فوحكو شقين جري قايد كان دمير لو خرايه غاريغا ددك ميل او جيجين جري يعني ببيئه العمل واها ددكي هore waa waxa soo raacay nin tuug ah oo magaalada eber ka dhigay nin walba uu dhaco waa dilaa ninkaas raad mareebaba waa ku dhaca waa ku dilaa bari maxaa buu dhahay ninkaan ay dhacay baanigi ninkii soo kooray dameerkiisa ma oga meel hebelan rabaa uu dhahay iwad soo socday inta u leexo wuxuu keenay meeshii dadka uu ku dilaayay gud meesha la tusiyay wixii xaafada ka maqnaan dhan oo la waayay gudkaana ku jira ayagoo meed ahba waxa la yiraahdaa inta ku sugoosa alla neef ka deg waa lagu dilaa wuxuu neefka qaado lacagta qaado aan la fasax wuxuu tan ku fasax xaafada ma ka sheegaysido ma ka sheegay waa lagu dilaa ee wax sheego wuxuu la warka aan dukana marka ninkii wuxuu la warka aan xirtay dhinaceegu taagan yahay safety galka kala baxsan tahay waraa iga dhaqso waraa salaada boobsi uu leeyahay ninkii wuxuu salaada markaan xirtay faatixada ii goysaba meel wax ka bilaaban waayay dhinacaaga di khore la taagan yahay oo dhaqso waraa uu dil raalo dhoo mudu karta adiga mudu kan kartid ninkii wuxuu faatixada ii goysaba indhii milix meel aan ka bilaaban waayay wax igu soo dhacday amman yujibul mutarra ida daa الله دعاءك أقبله يقف كدبان أيوة صار عادي ولا أما يجيب المطر اللي قبضه ولا إنه أيضا الفاتح كده وأكو على نينا فرس كجمت نينكي يدلي نينكي أو واحد دلي هاي يدلي فرس كيسو كلها بتأسف بحران كان صلاته كسر دمي ولا لو كالي ولا ماشان مال عدل واي عدنا يجمعوا أنت اللي كانية يا تهاي أديك وحولي أنا عبد من يجيب المضطر الله هذا صوت توقتي الدون كيس أنا ما لقاه إله إصاد دري ولا إله وحولي الدون كي حق لوها يستاي بحك سعلي ما لقاه صاد دري نكي ولا دري marka ilaahay subhanahu wa ta'ala in gacmaha kor loo taago muhiim waa mar walba ilaahay waa u baahanay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alle waa alle xishood badan wanaagsan wuxuu ka xishoodaa adoonkiisa markii gacmaha uu taago ayagoo maran inuu soo celiyo ilaahu khaasan rabada dhahdo ilaahay wuu ka xishoonaa in wax ku siinin nabi sallallahu alayhi wasallam markii la sixray naftirkiisa ilaahay buu bariyay ilaahay wuu ka qaaday waxa loo baahan yahay marka afar fursad inaan ka faa'iideysano oo ducada muhiim u ah marka dhibaataysan tahay oo qalbigaaga uu jaban yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada ku celceli waxaana ku barisaa si yaqiin ah adigoo ooynaa ilaahay wuu ka qaad dhibkaas insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala hada aragtay in dhibaato uu ku keenay waxa xaqiiqsataa ilaahay inuu ku jecel yahay ilaahay inuu rabo mar walbo baryadaada inuu maqlo maxaayele wax dil uu siiyo wax walba de ka maqnaan adduunyada wax ilaahay ka bariyaysan jirin sooma waa kibrisa raashinka guriga uu yaala xaaskaaga ilmahaaga ma xanuunsana guriga laba koronto kugu jirto laba biyo kugu jiro korontada markii dambe waxa la waxaan koronto ma iga bixiya solar iyo soo xira koronto bixaysan banacay aniga hadii bixan qariifo ku gaarini aragtay ilaahay saxmu ku yaalo dib in lagu tusiyo adduunyada aku fiican ina ku raaxay dad qaar ay iska jeceliin raaxo inay iska galaano nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam raaxaysan lahayn saddex bilood gurigiisa dab ma laga shidi jirin ilaahay ma nacbana nabigiis maya
ilaahay uu weydiiyay boqor man ka dhigaa iyo nabi mise adoon iska baahanaya nabi man ka dhigaa labadaas dooro wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam waxaan rabaa adoon gaajo qabanayso marna baahi dhirgaayo nabina iga dhig sida Suleymaan marba uu dhahay nabi Suleymaan alayhi salaam boqorna uu ahaa adduunna wala soo hoos dhigay laakiin wuxuu ku bariyay ilaahu boqortooyadan qof dambe aan iga dambeeyo hasiin loo yiri maxaa yeelay boqortooyo weyn ahayd xitaa jinku la hadli jiray shimbiruhu la hadli jiray xayawaanada quraanjadu maqli jiray warkeeda marka xilliga dambe 8 saac habeenimo ma marka qaar waxa arkaysaa adigoo lagu soo kicinin cidna ku taabanin adigoo indhaha iska furtay arkayso fadhiist si fiican dib isku baar 8 saac 9 saac marka soo kacaysa arkayst ilaahay ku soo kacsaday ilaahay ku soo kicay ilaahay wuxuu rabaa in la hadashid ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu dhawiyahay markaas wax walba uu maqlayaa inaa ka faa'iideysataa rabaa musqula lagu soo kicina ilaahay ku soo kiciyay ilaahay soo ku jeclaan faraha laga qaada fursadaha noocaas ka faa'iideyst habeenkii waxa laga yaabaa xiliyaas in lagu gaaro wax ma la yacni ah ilaahay uu ku jeedaa kadibna ma bariyaysid qof walba anaga naga mid ah ducadaasi ilaahay inuu ku bariyo waa muhiim dibka jira wuxuu yahay xillig wax aan haysano ilaahay wax ma baryano dadka qaar markii wax ay haystaan ma dukanayaan markii shiidaan oo dukaanka soo xirxiro waxa arkay safka waada ku jira tusbaxu haystaa sida gaaladii Quraysheed oo kale gaalada Quraysheed waxay ahaayeen asnaami caabudi jireen markii badda ay galaan oo hiri uu ku kaco oo doonta ay arkaan inay gadoomi rabto ilaahay bari jireen إلهنا بدباري دهيان فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون حياة بديلة كانوا يا إلهي كسكس سدح بقول إلهنا إلها لنا أنا يجري مركا هذه مركا حواس شيء دبا مساعد كسو أرط مركا أفرتوكم يسكا أدنى هل هو أيو خفل بمرجيسن إله سبحانه وتعالى مموجنا إلهي أنبرين وصلوا وسلموا على نبي المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم أنت ثقتنا وأنت ثقتنا وأنت رجاؤنا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم أكفنا ما أهمنا اللهم أكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له وما أنت أعلم به منا ووجهنا للخير أينما توجهنا اللهم احفظ ديننا وأمننا وتعليمنا وصحتنا وحدودنا واحفظ ثرواتنا وثمراتنا واقتصادنا وعاداتنا اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدي لما تحب وترضى وخذ بناسيتهما للبر والتقوى وأجزهم خيرا على ما يبذلون لمصلحة الإسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله أنت مسلمين توحنون صنع عفمات دقدقاء وكان إله أنت مراد لمراد كود وسهل إله ساعدا أنت أمضفال إله فوشود وفضودي إله الدنبينا دنب والدكينا داف إله والدين تنا قوة أنت إله ونحرسه قوة نولنا إله ونحرسه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم السلام